dowladda hoose ee magaalada Ceerigaabo ayaa wado qorshayaal lagu banaynayay wadooyinka waaweyn ee magaalada Ceerigaabo xilli ay magaalada gudaheeda ay ka socdeen dhismayaal wadooyin laami ah. Hawlgalkan ayaa waxaa lagu burburiyay dhismayaal ku yaala wadooyinka. Hawlgalkan ugu ballaaran ayaa waxa uu ka dhacay wadada tagta jaamacadda Sanaag ee dhawaan u dhagax dhigay golaha deegaanka ee magaalada Ceerigaabo. Hawlgalkan ayaa waxa ay ka kaashadeen golaha deegaanku qaar ka mid ah ciidamada qalabka sida waxa ugu horeyntii madashaasi ka hadlay maayarka magaalada Ceerigaabo waxa hadaladiisina ka mid ah sida tan maanta way tahay bishii May September 2015 halkan waxa jooga dhammaan maamulka gobolka degmada ciidamada qalabka siday dadweynihii alxamdulillah waxa magaalada ka socda Ceerigaabo horumar ah wadooyin laamiya waxa imika gabagabano 6 kilomitir oo iminka ilaa bisha dhamaadkeeda aan rajaynayno in laga farxasho insha Allah taala waxaanu bilownay 3 kilomitir cusub oo ay ugu horeyso 2 kilomitir oo ka bilaabmaya magaalada bartankeeda gaarayana jaamacadda Sanaag University imika waxa aragtaan burbur halkan yaala cagafyo daba taagan wadadii baanu banaynayna meesha ay ku beegantana waan duminay weeno horeeyay waa duminayna waxaana mikrofoonka la kala wareegay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka. Bismillaahi Raxmaani Raxiim halkan waxaanu ku qabanay sida maayarku sheegay shir jaraa'id oo ah ku saabsan laami dhigis 2 kilomitir ah aamigaas oo ka soo bilaabay magaalada Bartamaheeda kuna eg jaamacadda University Sanaag waxaana fulinayaa dowladda hoose ee degmada Ceerigaabo waxaanu leenahay hadalka badin meeyne dadka reer Ceerigaabo dhamaantood waan salaameynaa si fiican bay noola shaqeeyeen kuwa dambana waa fulin doonaa kuwa dambana la kala shaqeeyo halkan aynu ka taaganahay waxa ka socda hawlgal ballaaran muddooyinkii u dambeeyay ka soconayay gudaha magaalada Ceerigaabo hawlgalka ay fulinayso dowladda hoose ee golaha deegaanka waxa lagu banaynayaa wadooyinka magaalada Ceerigaabo dhexmara halkan waxa maraysa wadada Aalisa jaamacadda Sanaag University waxayna ka tirtirtaa magaalada Ceerigaabo tani waxay ka mid tahay ka turjumaysaa qabadka muuqday golaha deegaanka degmada Ceerigaabo shacabkooda la garab taagan yahay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shacabka reer Ceerigaabo oo garab istaagay banaynta wadooyinkan maamulka gobolka kan degmada iyo ciidamada qalabka sidoo iskaashanaya ayaa barnaamijkan wada fulinaya. waxa ugu dambeyntii halkaasina ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falay waxaana hadaladiisii ahaa rabbil caalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين waxaan halka ka salaamayaa gudoomiyaha golaha deegaanka ana meerka degmada Ceerigaabo xubnaha golaha deegaanka uqaasha salaadiinta saxaafadda saraakiisha ciidamada iyo ciidamada qalabka sida dhammaan dadweynaha assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan dabadeed ilaahay baa mahad leh aad iyo aad runtii waxaan maanta ugu mahad celinayaa golaha deegaanka degmada Ceerigaabo oo hogaaminaya meeyarku oo halkan maanta ka fulinaya 2 kilomitir oo laami ah sida la sheegay 2 kilomitir ay ka bilaabmayaan suuqa waxaanay ku eg yihiin jaamacadda Ceerigaabo University waa arrin aad iyo aad u ah faa'iido sida la soo tilmaamay 6 kilomitir oo hore waa gebagabo maanta 2 kilomitir iyaga fulinaya aniga farxad bay kulleeba ii tahay intii aan joogay ayaa waxa soo laamiyay ay ka bilaabeen magaalada waa galada eebe wax ku yimi anigana farxad iyo jaalis iyo nasiib bay ii tahay Ceerigaabo intii aan joogay baa laamiyadu ka socdeen oo ka hirgaleen maantana dowladii hoose ah oo faa'iidatay inay laamiyadii bilaabaan waxaan rajaynayaa in ay kuwa dambana ku dari doonaan haddii ay ka dhigo Muxsin Maxamed Siciid telefishinka caalamiga Somali Channel Ceerigaabo.